bal fiiri wiilkan dhalinyarada ah wuxuu mar walba raadkeeda uu soo qaadaa uu soo daba kacaa gabar ayadoon ogeyn. Waa ay dareentay maalin maalmaha ka mid ah habeen ayagoo jooga xaafad ayay soo baxday wuuna soo daba kacay. Marka ay waxay ka aragtay gadaal way istaagtay waxay weydiisay maxaad rabtaa. Wuxuu ku jawaabay adiga ayaan ku rabaa. Waxay tiri xaaraan miyaad igu rabtaa? haa ayuu yiri. Kadib waxay tiri orod bax soo fiiri guryaha in dadka xaafadda ay seexdeen oo ay wada hurdayaan oo cid soo jeeda aysan jirin. Waa uu farxay waxa uu maleeyay in ay aqbalayso. Waa uu baxay guryaha iyo soo fiiriyay. Wuxuu ogaaday in dadkii dhan ay wada hurdayaan oo cid soo jeeda aysan jirin. Waa uu soo laabtay wuxuu yiri dadkii dhan waa ay wada seexdeen oo cid soo jeeda ma lahan. Waxay tiri ma hubtaa? Wuxuu yiri haa waan hubaa cid soo jeeda ma lahan. Su'aal kale ayay weydiisay waxay tiri rabbigeena ma hurdayaa? oo rabbigeena ma hurdayaa uma seexday? Markaas uu la yaabay wuxuu yiri rabbi ma hurdo. Waxay tiri alla wuuna arkayaa dadka miyaad ka baqaysaa in ka badan inta aad ka baqaysid dadka rabbigooda. Markaas ayuu wuxuu yiri waan jareeyay oo waan gariiray. Markaas ayaan alla u laabtay. Muddo kadib ninkii waa uu dhintay asagoo nin wanaagsan ahaa. Saaxiibkiisa ayaa riyada ku arkay wuxuuna weydiiyey muxuu Ilaahay kugu sameeyay. Wuxuu ku jawaabay alla wuu iga toobad aqbalay wuuna iska kay cafiyay. Wuxuu weydiiyay sidee? Markaas wuxuu yiri cabsidaan ka cabsaday darteed.